sheekooyinka nebiyada alle waxa hubaala inay mar waliba tusaale wanaagsan u yihiin nolosheena maanta. Markaa baro inaad fahanto oo aad daraasiiso xigmadaha kala duwan ee noloshooda ayaa aad inoo anfacaya. Nebi Ibraahim waxa uu ka tirsan yahay 25 nebi ee lagu sheegay Quraanka Kariimka ah. waxa kale oo uu ka mid yahay 5 nebi ee ulul casamka ah. Abtirsiga Nebi Ibraahim waxa uu noqonayaa sida uu soo wariyay Ibn Kasiir, Ibraahim bin Asad ibn Nahura ibn Saruja ibn Ra'uwa ibn Farij ibn Cabir ibn Shalih ibn Arfakhshamda ibn Sam ibn Nuh alayhi salaam. waxa uu ku abtirsadaa Cabir ibn Shalih oo la dhashay Hud alayhi salaam. waxa uu Nebi Ibraahim kala sameeyay Nebi Salih iyo Nebi Hud in ay ku wada abtirsadaan Sam ibn Nuh oo ahaa wiilkii Nebi Nuh alayhi salaam. Nebi Ibraahim waxa la dhashay wiil oo kala ahaa Haaraan iyo Naaxuura. Nebi Ibraahim waxa uu ahaa wiilkii dhex. Naaxuurana waa uu ka yaraa halka Haaraan uu ka weynaa. Haaraan waxa uu dhalay Nebi Luud alayhi salaam. Nebi Ibraahim waxa uu dhashay aabii Aasar oo jira 75 sano. wuxuuna ku dhashay deegaankii Baabil oo ku taalay dalka maanta loo yaqaan Ciraaq. waana sida ay isku waafaqeen culimada ka faalato siirooyinku. deegaankii uu ka dhashay Nebi Ibraahim waxay ahaayeen kuwa caabudi jiray asnaamta iyo xidigaha, halka qaar kalena ay caabudi jireen boqorada markaas Nebi Ibraahim aabii Aasaar waxa uu lahaa sanam isaga u gaara. isaga oo dhalinyaro ah ayuuna Nebi Ibraahim ka biyo diiday waxa ay qoomkiisu caabudayeen. qofkii ugu horeeyay ee uu dacwada ula tagaana waxa uu ahaa aabihii. waxa uu ku yiri, aabbu maxaad u caabudaysaa wax aan waxba ku tarin, waxba aan arkayn, adigana aan waxba ku tarin Alle subxaanahu wa tacaala agtiisa. dood adag ayaana dhex mari jirtay isaga iyo aabihii. mar walibana isagoo ilaalinaya xurmada waalid ayuu haddana aabihii u sheegi jiray in uu waddo qaldan ku socdo oo shirki ah, waxaan khasaare iyo hoog ahayna u horseedayn. Nebi Ibraahim waxa uu adeegsaday akhlaaq iyo asluub aad u dabacsan, hase ahaatee aabihii oo ahaa mid ay gaalnimo ku fogaatay waa uu ka biyo diiday, kadibna waa uu deeriyey. Nebi Ibraahim sidaas ugama hadhin inuu aabbihi xaqa ugu yeedho. Aasar markii uu ka reebi waayey wiilkiisii Ibraahim calayhi salaam xumaa ka sheegista asnaamtooda, aad ayaa uga cadhooday, waxaana ugu hanjabay in uu dhagax ku dili doono ama ay dhulka ay ku nool yihiin uu ka mustaafurin doono. balse waxa uu sheegay waxa uu ka hadlay in aanay ahayn hadal uu iska aliftay, balse uu yahay waxyi uu Alle subxaanahu wa tacaala ka helay. Nebi Ibraahim markii uu ka daalay wax u sheegidda aabihii ayuu ku yidhi, nabadgelyo korkaada ha ahaato, waan kuu dembi dhaaf weydiin doonaa Alle subxaanahu wa tacaala. Alle aniga waa uu ii naxariistay. sidaas ayuuna ku go'aansaday in uusan dacwadda keliya ku eekayn aabihii ee uu deegaanku ku nool yahay dadka joogay oo dhan gaadhsiiyo. maalin maalmaha ka mid ayaa waxa uu la kulmay qoyskiisii oo u sujuudsan sanamyada. kadibna waxa uu weydiiyey, waa maxay tamaashiida aad u sujuudsantihiin? waxayna qoomkiisii ugu jawaabeen, waa dhaxal aan ka dhaxalnay aabbayaashii oo sidaas ayaan u caabudaynaa. Nebi Ibraahim isagoo aad u dhiiran ayaa waxa uu ku yidhi, idinka iyo aabbayaashiinba waxaad ku sugantihiin baadi iyo khasaaro cad. waxay ku yidhaahdeen, Ibraahimow ma xaq ayaad noola timi mise waad iska ciyaaraysaa? waxa uu ku yidhi, eebbihiin waa Rabbiga samooyinka iyo dhulkaba abuuray, anigana markhaati ayaan ka ahay. Nebi Ibraahim waxa uu u ballan qaaday inuu burburiyo sanamyada ay qoomkiisu Alle ay la lamaaneeyeen. maalintii dambe ayaa qoomkiisii u baxeen si ay u soo dabaaldegaan, waxayna ka tegeen sanamyadii oo cid ilaalisa aan lahayn. Nebi Ibraahim waxa uu ku hadhay magaalada, kadibna waxa uu u tegey sanamyadii weydiiyeyna inay cunaan cuntada iyo khudaarta la hordhigay. sanamyadii wax falcelin ah ma aysan samayn, cuntadii hortaalayna ma aysan cunayn. markaas ayuu Nebi Ibraahim soo qaatay faas ama gudin, kadibna uu burburiyey sanamyadii marka laga reebo kii ugu weynaa. dabadeedna faaskii weynaa ayaa uu qoorta u suray sanamkii weynaa. qoomkiisii markii ay soo noqdeen ayaa ay la kulmeen mucjisadii, kadibna waxay isweydiiyeen in lagu soo duulay iyo in kale. laakiin markiiba koox qoomka ka tirsan ayaa tiri, waxaa jiray wiil yar oo sanamyadeena ceebaynaya, waxaana la dhahaa Ibraahim. kadibna waa ay soo qabteen Nebi Ibraahim oo ku dhaheen, ma adiga ayaa sanamyada burburiyey? Nebi Ibraahim waxa uu ugu jawaabay, waxaad weydiisaan ka weyn haddii uu awood u leeyahay inuu hadlo. markii ay arkeen inuusan hadlayn sanamka weyn ayaa ay dib isugu noqdeen oo ay dhaheen, waxaad tihiin daalimiin. hase ahaatee waxay ku adkaysteen in ay u gargaaraan sanamyadooda, waxayna go'aansadeen in la gubo Nebi Ibraahim. arrintii Nebi Ibraahim markii ay faaftay ayaa waxaa maqlay nin boqor ah oo la odhan jiray Nabruud ibnu Kancaan. Nabruud waxa uu ahaa boqor ka taliya dhul aad u ballaadhan. deegaanka Nebi Ibraahimna waxa uu ka tirsanaa dhulka uu ka taliyo. kibirkiisii ayaana tusay inuu ilaahnimo sheegto, waxa uuna ahaa boqor aad u dulmi iyo isla weyni badan. Nabruud ayaa waxa uu yidhi, hala ii keeno Ibraahim. markii loo geeyey ayaa waxa uu weydiiyey, ma waxaa sheeganaysaa inaad leedahay ilaah aan aniga ahayn? markaas ayuu yidhi Nebi Ibraahim, haa, ilaahay waa kan wax dilo waxna nooleeya. Nabruud ayaa yidhi,
yidhi aniguba wax waan dilaa waana nooleeyaa wuxuuna xabsiga ka soo daayey 2 nin mid ka mid ah ayuu dilay kii kalena waa uu sii daayey markii uu nebi ibraahim arkay in uu ninkan murmayo ayaa uu ku yidhi alle waxa uu dhanka bidix ka soo bixiyaa maalin kasta cadceedda ee adigu ka soo bixi dhanka galbeed haddii aad awood leedahay halkaas ayuuna ku ceeboobay uuna ku jabay boqorkii kibirka badnaa ee nabruud nebi ibraahim nabadgelyo korkiisa ahaatay intii uu joogay dalka ciraaq markii uu waayey cid rumayso oo aan ka ahayn xaaskiisa saara iyo weliba wiilkii adeerka u ahaa ee nebi luud nabadgelyo korkiisa ahaatay ayuu ciraaq ka hajiray isaga saara iyo luud una boqolay dhulka barakaysan ee falastiin waxa uu deegaan ka yeeshay falastiin hase ahaatee waxa uu markii dambe u safreen isaga iyo xaaskiisu dhulka masar waqtigaasi cid kale oo muslima ma aysan jirin marka laga reebo nebi ibraahim iyo xaaskiisa saara iyo weliba nebi luud nebi ibraahim iyo saara nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee waxa ay galeen masar kadibna waxaa loo sheegay boqorka ka taliya masar inuu yahay nin dadka dulmiya qafaasha haweenka kadibna ku xadgudba ciidamadii boqorka ayaa haleelay nebi ibraahim kadibna waxay weydiiyeen ruuxa dumarka ah ee la socota kadibna waxa uu ugu jawaabay waa walaashiis isaga oo uga jeeda inay tahay walaashiisa diinta islaamka boqorkii ayaa loo warceliyay hase ahaatee waxa uu amray ciidankiisa in ay saare hor keenaan kadibna waa loo keenay markaas buu damcay inuu ku xadgudbo markuu xaggeeda u soo dhaqaaqay ay saare ee bakaamo weydiisatay eebbana waa uu ka ajiibay oo ninkii boqorkaa waxaa sibi faali boqorkii baa weydiistay inay eebbaheed barido oo uu ka dulqaado xanuunka ku habsaday wuxuuna ballan qaaday inuusan ku xadgudbayn mar kale saare waxay bariday mar kale eebba waana laga dulqaaday boqorkii dhibkii qabsaday hase ahaatee boqorkii waa uu ballanjabiyey oo haddana waxau isku dayey inuu ku xadgudbo hase ahaatee mar walba oo uu ku soo dhowaado boqorka waxaa asiibayey jiradaas markii saddexaad ayaa boqorkii waxa uu yeedhay ciidankiisa oo uu ku yidhi tani waa shayddaanada ee iga saara kadibna waxa uu siiyey gabadh jaariyad ah oo boqorka u shaqaynaysay saare nabadgelyo korkeeda ahaatee waxay u timi nebi ibraahim waxayna ku tiri eebba ayaa iga badbaadiyey ninkii daalimka ahaa waxaana laysoo raaciyey haajara nebi ibraahim iyo xaaskiisii saara waxay ku laabteen dhulka barakaysan ee falastiin kadibna saara waxay aragtay nebi ibraahim inay da'diisu weynaatay wax carruurana uusan dhalin markaas ayay saara kula talisay inuu guursado haajar waxaa laga yaabaa inuu eebba ubadkaa siiyo nebi ibraahim waxa uu guursaday haajar waxayna u dhashay wiil yar waa nebi ismaaciil nabadgelyo korkiisa ahaatee markaas ayay maseertay saara waxa uuna eebba ku amray nebi ibraahim inuu u safro dhul lamadegaan ah kuna yaalo buuro dhexdeeda oo aan lahayn beer iyo biyo toona nebi ibraahim waa uu soo kaxeeyey reerkiisii waxauna dejiyey meel lamadegaan ah cidna aanay ku nooleen sidoo kale ceed biyood aan lahayn markaas ayaa uu inta uu reerkiisii dhigi ka sii jeestay haajare ayaa ka daba oroday iyada oo weydiinaysa halkee ayaa nooga tegaysaa maciladan cidna aanay deganeyn nebi ibraahim wax jawaaba ma uusan siinin markaas ayay ku tiri ma eebbe ayaa sidaas ku amray nebi ibraahim waxa ugu jawaabay eebbahay ayaa sidaas i amray kadibna haajare nabadgelyo korkeeda ahaatee waxay tiri haddaba eebba nama dayacayo dhulkan lamadegaanka ah waa maka oo wakhtigaasi waxa uu ahaa dhul qallafsan oo beerina ayna ka bixin cidna aanay ku noolayn nebi ibraahim markii uuga soo tegey reerkiisii meeshaasi cidlada ah oo uu gaadhay buur yar oo u dhow iridda maka laga gala ayaa uu istaagay isaga oo gacmaha alle u taagaya ayuuna yidhi rabbiyo waxaan reerkaygii dejiyey waadi aan wax doog iyo beera ah lahayn una dhow gurigaaga barakaysan rabbiyow si ay salaada u oogaan dad la dego oo ay weheshadaan u yeel midhano ku irsaaq waxa ay mudan yihiin in ay kugu shugriyaan kadibna xagga dhulkii uu ka yimid ayaa uu u jihays alle ayaana ka aqbalay oo reerkiisii meeshaasi cidlada ahayd u barakeeyey muddo kadibna waxaa nebi ibraahim u timid bishaaro kale oo ahayd in xaaskiisa weyn ay dhali doonto wiil la yidhaahdo isxaaq kaasi oo isna dhali doono yacquub labadana uu alle ka dhigi doono nebiyo iyo dad uu alle doortay nebi ibraahim waxa uu mar walba buuqan jiray maka si uga warqabo xaalka reerkiisa kale markii ismaaciil weynaaday ayaa alle ku imtixaamay inuu qowraco wiilkiisa yar amarkii alle ayuuna qaatay markii uu midida qoorta ka saaray ayuu alle subxaana wa tacaala ismaaciil ku furtay neef wan ah oo weyn ibraahimna waxa uu ku sifeeyey in uu yahay ballanfuliye rusheeg ah ibnu cabbaas alle raalliha ka noqday waxa uu yidhi nebi ibraahim ayaa waxa uu yimid maka isaga oo wada amar alle oo ah inuu dhiso kacbada wiilkiisii nebi ismaaciil ayaa uu ku yidhi waxaa lay amray inaan halkan ka dhiso ilaahay beydkiisa barakaysan markaas ayay bilaabeen dhisidda kacbada markii dhisidda kacbada dhammeeyeen ayaa waxa u yimid jibriil si uu baro malaasigta iyo qaabka loo guto xajka iyo goobaha dawaafka kadibna nebi ibraahim dadkii goobta jooga ayuu khudbad u jeediyey isaga oo leh dadow alle xaj ayuu idinku waajib yeelay qof walba oo
soo baxa ilaa iyo inta qiyaamaha laga gaadhayana waxa uu ku noqon doonaa waajib haddii uu awooddeeda yeesho. Kadibna Nebi Ibraahim waxa uu ku soo laabtay dhulkiisii muddo yar kadibna waxaa Nebi Ibraahim ku soo xaadirtay geeridii. Waxa uu u yeedhay awlaadiisii iyo intii ay dhaleen si uu la dardaarmo. Waxa uuna ku yidhi, ubadkaygiiyo Alle waxa uu idiin doortay diintan ee ha dhimanina idinka oo aan muslim ahayn. Kadibna waa uu geeriyooday Nebi Ibraahim isaga oo uu Alle raalli ka yahay, waajibkii saarnaa ee ugu yeedhidda dadka cibaadada Allena gutay. Nebi Ibraahim waxa lagu aasay dhulka Falastiin, waxa uuna dadka uga tegay dhaxal iyo raad fiican oo ay raacaan. Alle ayaana ku sharfay inay dhammaan nebiyadii ka dambeeyey ay noqdaan kuwo durriyadiisa ah.